وأنا في على حفتي جبت هداي مشاهد شوروي شوفتان كاسو أي قعدت الرأي لو يكتب نلفزان أو قعدت يلقط لا أنا لن إبلي نقول كتب حسن بي إسبتال خالي وضعنا سومالي سوداني سليقية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتور بسام الحركي، أخصائي أمراض العصبية في مستشفى الصومالي السوداني في مقديشو. من قبل 10 أيام جاءنا المريض حسن إلى قسم الإسعاف في المشفى الصومالي السوداني يشكو من حالة ضعف شقي أيسر. بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي ودكتور بسام waxaana ahay dhakhtar ku takhasusay daweynta xanuunada dhimirka iyo neerfaha ee ka howlgala cisbitaalka takhasusiga ee Somali Sudanese. 10 maalmood ka hor waxaa la keenay qaybta gurmadka degdega ah ee cisbitaalka Somali Sudanese. Bukaan ku jiray xaalad adag maadaama ay jirtay daciifnimo dhinaca bidix ee jirka, dhibaato weyn oo dhanka hadalka ah iyo cadaadiska dhiigga oo si aad ah u sareeya. waxaa xusid mudan inuusan lahayn wax taariikh caafimaad oo xanuunada krooniga ah. kooxda gurmadka degdega ah waxay si degdeg ah u bixiyeen daryeelka lagama maarmaanka ah, waxayna si guul ah u xakameeyeen cadaadiska dhiiggiisa. nasiib wanaag 12 saacadood gudahooda bukaanku wuxuu sameeyay horumar weyn oo dhinaca neerfaha ah. 10 maalmood kadib bixitaankiisa isbitaalka, bukaanku wuxuu ku soo laabtay qaybta bukaan socodka isagoo caafimaad qaba. wuxuuna mahadnaq qoto dheer u jeediyay dhammaan shaqaalaha caafimaadka iyo maamulka isbitaalka. أنا حسن بريس حاجة بقولك أو يمت إسبتال سومالي سودانيس وأنا في على حفتي جبت هداي مشاهد شوروي شوفتان كاسو أي قعدت الرأي لو يكتب سلامتي النلفزان أو قعدت يلقط لا أنا لن إبلي نقول كتب حسن بي إسبتال خالي وضعنا سومالي سوداني سليقية. الحمد لله وسعدت إنه يحل بالي شيء داوينا ليه بالله إلى دقدقاقي وصون الله الحمد لله مركا بحي اللوجية كبحي مركا إيماننا ولا لي وضع بلا لي وضع لكنا هذا عارف ماذا دليل ما إلى ما ديس وحقب الشديد دقدقاقي أنا قبست أنا ويسقاطه أنا دكتور الحمد لله dadku waxa ku talina haday dareemaan inay si degdeg ah u soo gaaraan isbitaalka qofkaas oo qabo dhiikar oo la qaadanayna daawo mas'aladaas saa ula socotid تقاتلت للصعود ديك للصعود داود سيد لو طلق الإسلام